السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن أصحابي مالكستوا جوكتان كسور دوادا برنامج كينا قلب نمو مانتوا أحد تاريخ ذروا سديد يلاباتنك بشا سبتمبر سنة كالباكون يشان يلاباتن برنامج هو كي لبات ما تاني ديسو قد برينو هذا برنامج كينا قلبتا وحينو كفا فاهين دورنا dagaal aad u culus taangiyo tiro badan ayay Israa'iil waxay gelisay Gaza boorka iyo jugta ayaa socota Al-Yaasiin ayaa si wanaagsan u adeeganaya sida la leeyahay haddaba xaaladda dagaalkan oo afarta dhinac ay maanta isbiimeeyeen oo ay taangiyo soo geliyeen xaalku halka uu marayo saacadihii la soo dhaafay wararkii ugu dambeeyaan idin haya وعسو كلان إذن هيا ورقورد والقسام أي سو صارتي أي كشيغيسو قار كمدا محابيستي أي هيين إن حرير كودي أو قعي كدب مركي إسرائيل ورر كبالاران أي كسو قادي مدينة غزة هذا ما جوي واسدي جنرال هوري أو عيدن كإسرائيل كترسان أيا يساقنا وحاو شاقي إن عيدن كإسرائيل لقاري باب أودي oo halka ay ku baabi'i doonaan maadaama dawladda Israa'iil ay go'aansatay inay ciidanka biimayso oo naftooda ay ku halaagto Gaza haddaba sheekooyinkaas cajiibka ah wararkii ugu waaweynaa xaaladda Gaza oo cirka maraysa maanta aynu barnaamijkeena galabta ku faahfaahineynaa qaybaha dambana waxaan idinku hayaa Ruushka oo mar kale daakum ka dhigay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev waddanka Poland ee ku jira gaashaanbuurta NATO xuduudna la leh Ukraine oo heegan galay haddaba xaalku waa sidee Ruushku halkee laga taabtay tafaasiisha warkaasna waan idin hayaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahineynaa inta aan ku jirno barnaamijka wixii waranaya soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta waa axad barnaamijku waa kii labaad inta badan waxaynu kaga hadli doonaa xilligan aan idinla hadlayo aad waxay warbaahinta uga hadlayaan gaar ahaan Al Jazeera dagaal aad u qaraar oo ka socda Gaza afarta dhinac Gaza ayay waxay ku soo daadiyeen taangiyo wixii la qarxinaa hal la qarxiyo wixii kale meel hal la saaro ciidanka Israa'iil amara la sii waxa waxaan aad meelaha ku areeraysan tihiin maahane hal la galo meesha maanta marka waa la isku soo shubay waxa ka socda qiiqa iyo uurada ka baxaysa meesha taangiyada garaacista ay hayaan mid walba wuxuu isleeyahay Al-Yaasiin ku yaano kugu dhicin markaasuu afarta dhinac wuxuu u firdhinayaa wixii rasaas uu haysto ku garaacaya magaaladii oo dhan waa wada qiicaysa xaafadda la yiraahdo Gaza Al-Qassam iyo muqaawamada kale iyaguna gantaalahooda iyo Al-Yaasiinkoodaasi nagta ku hayaan goordhow tafaasiisha Al-Qassam way soo bixi doontaa laakiin marka hore jawiga sida uu yahay iyo xaaladda wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera hadaan idin la wadaago telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay dabaabaadka ama taangiyada gumaystuhu waxa ay soo galeen xaafado kala duwan oo ka tirsan Gaza haddaba waxa la sheegayaa dadka halka ku xaniban gargaarka dalbanaya ayaa meel loo maro la leeyahay oo markaa taangiyadu ay xoog ku galeen warbixinta way sii socotay waxa leeyahay taangiyada Israa'iil ayaa maanta axada waxa ay gudaha u galeen xaafado kala duwan oo dadku degan yihiin magaalada la yiraahdo Gaza waxaana la sheegay in ay ka horeeyeen weeraro waali ah oo dhinaca cirka ah haddaba waxa la sheegay durbaba in la soo warinayo 40 qof oo Falastiiniyiin ah inay dhinteen saacadihii la soo dhaafay haddaba waxa la sheegayaa kooxaha gurmadku inaanay awood u lahayn dadka dhibaataysan inay u gurmadaan taangiyada Israa'iil ayaa iyagu si xoog leh u galay xaafadaha la yiraahdo As-Sabra iyo Tal al-Hawa iyo Sheikh Ridwan iyo Hayy Nasr meesha la leeyahay waxaana la sheegay in halka ay kala kulmayaan iska caabin aan hore loo arag oo ay sameynayaan kooxaha wax iska caabinaya way
marka waxaa halkaa ka socda dagaal cirka iyo dhulka ah ka socda. nimankii magaalada waa nadii sheegay hadda ka horna Aljazeera way sheegtay satellite sawirro ay qaadeen wixii oo dhan halkaan ay kugu soo gudbiyo waa la socotaan. magaalada Gaza way isku wareejiyeen way gali weysanayeen. hadda maadaama culaysyo fara badan iyo heshiisyo la gaaraya iyo waxa kale la yiri marka nimanka kanu waxa la yiri wax alla waxay rabtaadi ku qaadatee galab meesha waa isku soo daadiyeen marka maanta. haddaba durbaba marka waxaa bilowday wararkii Al-Qassam ay soo saareysay. haddaba Aljazeera waxay leedahay Al-Qassam waxay sheegtay in xiriirkii uu ka go'ay laba kamid ah maxaabiistii Israa'iiliyiinta iyo dadkii waardiyeynayay. waxaana ay sheegeen in halkaa digniin ay uga dirayaan ciidanka Israa'iil. warbixintu way sii socotay. Kataa'ibul Qassam ayaa maanta axada waxay si rasmi ah u sheegtay inay kala go'een xiriirkii laba maxbuus oo la kala yiraahdo Amri Miran iyo Infrest. waxaana la sheegay in howlgalka military ee Israa'iil ay ka bilowday deegaanadaasi Hayu Sabra iyo Tel El Hawa ay sabab u tahay. waxaana la sheegay in halkaa ay dagaalo aad u qaraar ay ka soconayaan. marka waxay leedahay Al-Qassam wixii ku yimaada adinka ka mas'uul ماشي الوحي وحي ودن دغال سو ميدان ku soo qaaday soo duqays ka bood annaga hadda xiriirkii uu naga go'ay inay nool yihiin inay dhinteen war kamayn walwalka marka ku sii badanaya dadkii yaa kacaya war dadkeeni waa la laayay marka nimanka Al-Qassam nimanka kaartada lagu la ciyaaro way yaqaanaan. marka sheekadu halkaas maray. marka dhanka Al-Qassam wali tafaasiil badan oo muqaawamada kama imanin oo ku saabsan dagaalka hadda socda kullay. laakiin waxay leeyihiin wariyaashu xogta waa la heli doonaa ilaa caawa wixii ka soo kordha. nimanka way isku shubeen kadibna waxay ay halkaa ka helaan waa la arki doonaa. durbaba marka yaa soo hadlay generaal sare oo howlgaba oo ciidanka Israa'iil ka tirsan oo caanka ah gudaha Israa'iil ayaa fariin soo saaray. haddaba markaan idin soo fariinta generaalka uu soo diray Ishaq Break ayaa la yiraahdaa. waxa uu sheegay inuu cabsi weyn ka qabo ciidanku inay burburaan Israa'iil. generaalkan howlgalka ah ee ciidamada Israa'iil ka tirsan ee Ishaq Break ayaa wuxuu sheegay inay jiraan khataro xaqiiqi ah oo muujinaya ciidamadu inay burburayaan oo markaa la weyn doono wax askar ah oo dagaalama oo awoodii militariga halka ay ku baabi'i doonto. xukuumadda Netanyahu wuxuu sheegay inay askarta ku sii wado meel qatara oo aanay markaa ka soo kaabsan karin. wuxuuna codsaday in dagaalka degdeg loo joojiyo maxaabiistana la soo daayo. لكن واقعي جنرال كأها وحو أركيا ماش هاي دوكر وكسي سعودة وحوليه وركا قبط عيدك وحنو ودك نوقوا الله قرب الصدورة هل كاسا اللي قدو بالدورة ورعيدك هلقا سو صاروا بجلي إسحاق بريك يا لنا جنرال وين وعيدك إسرائيل كتر سنة ولكن هذا هو هولقب إذا ماذا وحوليه دولة نتنياهو كجوغا وحن ور أسكر نودك على كان وين دونا ولي marka xaalku waxa ka garanaysa lagu leeyahay halkaas baa xadda dagaalku u leeyahay cabsida ay ragga waaweyn qabaan ee Israa'iiliyiinta. haddaba waa arki doonaa kullay meesha waa la isfara saaray awalna waa la isu hanjabay. nimankaanu sida caadada u ahayd mayay soo carari doonaan mise way ku sii fogaan doonaan oo way degi doonaan meesha. waxaan kala ogaan doonaa saacadaha soo socda. kulanti wanaagsan marka la asxaabay meel kastoo aad joogtaan galab wanaagsan waa galabnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 28 September. barnaamijkuna waa qaybihii ugu dambeeyay. haddaba muddooyinkan Ruushka iyo Ukraine way isu hanjabayeen. waxaa la leeyahay aroortii saakay ilaa xalay qaybo ka mid ah ilaa maantay oo axada waxa uu ku dhigay Ruushka waa la yaab. Ukraine caasimadeedii Kiev dukkum ka dhigaa lagu leeyahay. maxay sababtay in NATO ay gasho heegan gasho sababtoo ah Ukraine iyo Poland ayaa darisa. Polandna waxay ka tirsan tahay NATO. marka Poland ay qayliso waxay tiri ninkan waxa uu meesha ka wado annaga inuu nagu daraa ka cabsanayna ilaa awoodda iyo waxa la isticmaalayo. haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay Aljazeera ayaa qortay
akbar hujuum ama weerarkii ugu weynaa ee ruushka uu ku qaado Kiev ayaa dhacay. Poland iyo NATO-na waxay galeen heegan cabsida ay ka qabaan waxa meesha ka socda. haddaba caasimadda Ukraine ee Kiev ayaa la kulantay duqayn ruushka tii ugu xumayd abid subaxnimadii saakay oo axad ahayd. haddaba ciidanka cirka ee Ukraine ayaa waxay sheegeen in markaa xaaladda waddanku ay khatar ku jirto sida ay sheegeen. waxaana dhanka kale la sheegay in Poland iyaduna ay heegan gashay oo markaa ay ka baqayso waxa halkaa ka dhacaya. ruushka ayaa boqolaal diyaaradood oo drone iyo sawaariiqba ku harqiyay Ukraine oo nagta kaga saaray. ilaa hadda dhimashadu waxaa la sheegayaa inay cirka marayso, waxaana ku jirta sida la leeyahay gabar lagu sheegay da'deeda 12 sano jir. waxaana la sheegay 40 kale inay ku dhaawacmeen weerarkaas. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay xaaladdu inay cirka marayso, Moskana ay doonayso inay sii wado dagaalka iyo laynta dadkiisa, iyadoo doonaysa yiri inay cagta mariso wax walba. marka ninkii ruush ahaa maalmahan maruu Denmark ka qaylisiyo, maruu Poland ka oysiyo, Lithuania waxaasoo dhan ay ka qayliyaan, NATO heegane gasho la yidhaahdo. war ninkii waaba la celin laayay. xaalku marka waa la yaabaya. Poland waxay tiri aniga difaacan galay tiri difaac. markaan arkay Ukraine waxa lagu dhigaa annagu difaacan ku jirnaa. NATO waxay yiraahdeen Poland haddii lagu soo xadgudbo annagu ruushka asaguna jawaaba siin doonaa. xaalka marka asaguna halkaasay wax marayaan. adduunyadii oo dhan waxay isku bedeshay nagtaasaa la isku hayaa. meel kasta aad tagto waxaa la garaacay, kaasaa lagu dhuftay, dagaalaa laga baqayaa, nuclear baqlaysaa bas. marka ilaahu naga badbaadiya leeyahay musiibada iyo dhibaatada socota. marka xaalku ma wanaagsana.